barnaamijkani marnaba ma dhiirigelinayo jacaylka guurka ka hor. miyaa la odhan karaa qofka aamusan ama xidhan ma jecla qofkan kale? miyaa la odhan karaa sida keliya tee jacaylka lagu cabiraa inay tahay un hadal, mise waxaa jira habab kale oo tiro badan oo lagu cabiri karo jacaylka? qofka jecel in la ammaano ee laga warhayo 24 saacadood ee had iyo jeer jecel in si joogtaa loo tixgeliyo, iyo jacaylka qofkaasi sidee bay isku yihiin? sidee bay tahay in loola macaamiloodo? qofka leh shakhsiyadda qalqallafsanaanta miyaa la odhan karaa qofkan kale ma jecla marka uu si adag ula hadlo? bal ka waran shakhsiyadda kibirka badan leh, wax ma jeclaan kartaa? haddii uu wax jeclaado sidee bay tahay in loola macaamiloodo? ma laga yaabaa inay jiri karaan dadka qaar oo leh tilmaamaha ama shakhsiyadda nooca loo yaqaano nooca ku raaxaysta dhibta qofka kale, mase lala wadaagi karaa nolol? haddii nolol lala wadaago sidee ayay tahay in loola macaamiloodo? guud ahaan ma laga yaabaa shakhsiyadda ama tilmaamaha shakhsiyad ee qofku leeyahay inay saameyn ku leedahay nooca jacayl ee uu qofkaasi yeelanayo? mudanayaal iyo marweyn, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka aqoonta jacaylka, kaasood ka heli doontaan dhammaan jawaabaha su-aalaha aynu kor kusoo xusnay. bismillaah, alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam. qaybtan waxaynu kaga hadli doonaa saameynta ay shakhsiyaddu ku leedahay jacaylka. shakhsiyaddu waa tilmaamaha gaar ahaaneed ee uu qofku kaga soocan yahay dadka kale. waa dabeecadda, habdhaqanka iyo habfikirka oo uu qofku kaga soocan yahay dadka kaleeto, taas oo had iyo goor ka turjumaysa naftiisa iyo sida ay tahay. shakhsiyadda uu qofku leeyahay waxaa laga yaabaa inuu u dhashay, amaba maya waxaa laga yaabaa inay kusoo barbaariyeen waalidiintii, amaba maya waxaa laga yaabaa inuu ka dhaxlay bulshada uu kasoo jeedo iyo deegaanka uu kasoo jeeda sida ay u dhaqmaan. dadku waa ay ku kala duwan yihiin shakhsiyadaha ay ku kala sifoobeen. nooca shakhsiyadeed ee uu qofku leeyahay ayuunbaa saamaysan nolosha meel kasta uu kaga jiro. ninku haddii uu yahay guddoomiye waxaa laga yaabaa inuu dalka ku maamulo noociisa shakhsiyadeed sida ay tahay. haddii uu madaxweyne noqdo waxaa laga yaabaa inuu dalka ku maamulo noociisa shakhsiyadeed sida ay tahay. haddii uu guursado amaba la guursado gabadha waxaa laga yaabaa inay gurigaa ku maamulaan ama ay ku wada joogaan nooca shakhsiyadood ee ay leeyihiin. qof walba shakhsiyadiisu nooca ay tahay ayuunba ay ku xidhan tahay habdhaqankiisa, habfikirkiisa iyo hababka uu howlihiisa u fuliyo. marka waa muhiim in la barto qofka shakhsiyadiisu noocay tahay iyo kala duwanaanshiyahooga intaba. jacaylku miyuu isla bedbedelaa shakhsiyadda qofka? jawaabtu waa waa uu isla bedbedelaa shakhsiyadda qofka. waxa uu isla bedbedelaa kala duwanaanshiyaha shakhsiyadahooga iyo dabeecadahooga intaba. kolba shakhsiyadiisu nooca ay tahay baa waxaa laga yaabaa inay jaangoyso amaba ay u ekaato jacaylkiisu nooca uu ekaanayo. shakhsiyaduhu guud ahaan way badan yihiin, tiro ahaan ilaa 16 bay gaarsiiyeen culimada cilmi nafsigu, balse waxaynu ka soo qaadan doonaa qaybo ka mid ah. shakhsiyadda koowaad aynu soo qaadanayna waa shakhsiyadda aamusan, xidhxidhan amaba xishoodka badan. dadka qaarkood ba waxay ku sifoobeen inay yihiin dad xidhxidhan oo bulshada soo dhexgelin, dad aamusan ama maya dad xishood badan. dadkanu tilmaamo badan ay leeyihiin, balse tilmaamaha ugu muhiimsan waxa weeye inay mashaacirtoodu qabow yihiin marka xagga jacaylka laga eegayo. sidoo kale waxay leeyihiin xidhxidhnaan gudeed. waxaa laga yaabaa tusaalehaan haddii ninku guursado gabadh ku sifooday ama shakhsiyadeeda noocan ay tahay in gabadhaas hadii goor ay noqoto gabadh xidhxidhan, gabadh aan jacaylka ku cabirin hadal. waxaa laga yaabaa ninku markuu gurigiisa soo galo uu yidhaahdo assalaamu calaykum, wacalaykum salaam, iska warama, khayr, suma fiicni, nabad. in markiiba ay hadalka soo koobto, jawaabahana ay ka dhigto mid aad u koobkooban. kama aha gabadhan inaanay ninkan jeclayn, balse waa abuur ahaan iyo sida ay u abuuran tahay. deetana ragga qaarkood markay arkaan gabadh tilmaamahaasoo kale leh waxaa laga yaabaa inuu iska dhaadhiciyo inaanay jeclayn. waxaa laga yaabaa gabadhan marka ay soo booqdaan ninka qaraabadiisu in ay saasoo kale loola dhaqanto, dabeetana ninka qaraabadiisu ay yidhaahdaan gabadha ay si fiican noomay soo dhoweyn. dabeetana halkaa ay ku abuuranto khilaaf joogtaa. khilaafkan waxaa abuuray wax kala mahay waa shakhsiyadda labada qof oo aan laisla fahmin. sidaa daraaddeed qofka noocan hadiyo goor jacaylkiisa waxa uu ku cabiraa hab ficila. hadiyo goor qofka noocan oo kale ah lagulama xisaabtamo inuu ku hadlo hadallo romantiga, hadallo dabaxsan, inuu hadiyada keeno iyo wax lamid ah, balse waxaa lagula xisaabtamaa waa hadiyo goor u dhaqmaa ficilkiisu siduu yahay. marka qofka noocan si aad u ogaatay inuu ku jecel yahay iyo in kaleeto waxaad ka qiyaas qaadataa un ficilkiisa. marnaba ha eegin dhaliilaha uu leeyahay iyo aamusnaantan iyo xidhxidhnaantan iyo xishoodkan qofkan ku sifoobay. mushkiladda innaga ayna haysataa waxa ay tahay hadiyo goor waxa ay ishaynu qabataa ama aynu awoodda saarnaa qofku dhaliilaha uu leeyahay. waxaa laga yaabaa qofka inuu yahay qof xidhxidhan, qof xishood badan, qof aamusan. deetana qofkii wuxuu hadiyo goor isha saaraya in xidhxidhnaanta qofkaasi xidhxidhan yahay. taas markaa waxay abuuraysaa inuu qofkanu maadaamaan wanaagyadii qofkan kale arag ay abuurto in xiisihii iyo kalgacalkii iyo positive energy amaba waxyaabihii kalifayeen labadan qof isku soo hiloobaan ay meesha ka baxdo. laakiin ninku haddii uu awoodda saari lahaa qofkan wanaagyada uu leeyahay, ficilada uu hadiyo goor ku cabirayo jacaylkiisa waa ay ka duwanaan lahayd habka uu aaminsan yahay iyo khilaafka joogtada ah ee abuurmi lahaa. waxaa laga yaabaa ninku inuu isweydiiyo maxaa sababay gabadhan inay xidhxidhnaato, maxaa sababay inay gabadhan aamusnaato, balse waa abuur ilaahay. tusaalehaan midabo tiro badan buu ilaahay nagu abuuray. dadka qaarkood cadaan buu ka dhigay, dadka qaarkood casaan buu ka dhigay, dadka qaarkood wuxuu ka dhigay midabka brownka, dadka qaarkood ilaahay waxa uu ka dhigay midabka maariinka. marka qof walba midabka uu leeyahay ayaa ay ka dhigan tahay inuu ilaahay ku abuuray shakhsiyad u gaara.
qof walba markaa shakhsiyadiisa waa in lagu tixgeliyaa laguna dhaqmaa. markaa shakhsiyadda aynu ka soo hadalnay waxaynu tusaale ku soo qaadanay gabadha, laakiin ninka laftiisu shakhsiyadaas oo kale waa uu yeelan karaa, labadaba way u sinaan karaan. shakhsiyadda labaad ee aynu soo qaadanay waxa weeye waa shakhsiyadda u bandhigan bulshada. rag iyo dumarba waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay ku sifoobeen shakhsiyaddan loo yaqaano shakhsiyadda u bandhigan bulshada. shakhsiyadda noocan oo kale ah rag iyo dumarba haddii ay ku sifoobaan had iyo goor tilmaamaha ay leeyihiin waxaa ka mid ah waxay jecel yihiin dadka kale had iyo goor ay diiradda saaraan, inay soo eegaan, inay ixtiraamaan, inay qadariyaan, inay ammaan ugu daraan. rag iyo dumarba cidda tilmaantan iyo shakhsiyadda noocan ku sifooday waa la jeclaan karaa, balse waxay ku xiran tahay siyaabaha loola dhaqmayo qofkan oo kale. qofka noocan oo kale ah haddii la jeclaado ama qofka noocan oo kale ah haddii uu xiriir jacayl la galo qof kaleeto, siyaabaha loola dhaqmayo waxa weeye in had iyo goor la ixtiraamo, in la qadariyo, in la isku dayo in loo muujiyo in had iyo goor danayn badan loo hayo. had iyo goor qofka noocan oo kale haddii uu khilaaf dhaco ama uu khalad sameeyo, waxaa khalad ah in markiiba lagula soo booday in la canaanto, balse had iyo goor haddii aad doonayso qofkan oo kale in uu khilaafku yaraado amaba wax la xaliyo amaba in loo sheego waxna laga dhaadhiciyo, sida ugu fudud ee loogu sheegi karaa loogana dhaadhicin karaa waxa weeyaan in loo garaaco xadhkaha ammaanta. qofka noocan oo kale maadaama yahay qof u bandhigan bulshada, qof jecel in la ixtiraamo, in la qadariyo, in had iyo goor la ammaano, waxay noqonaysaa in laga soo galo xagga ammaanta. haddaad doonayso inaad wax u sheegto waa inaad marka hore ka horreysiisaa in yaroo ammaana. haddii qofkaas wax kuu qabto waa inaad ammaantaa, waa inaad had iyo goor u mahad celisaa. deetana shakhsiyadda noocaasa ee u bandhigan bulshada waxaa loola dhaqmayaa un habka aan soo sheegay. shakhsiyadda noocan ah rag iyo dumarba ciddii ku sifooday waxa ay awoodda saaraan isqurxinta jireed iyo iska hagaajinta labiska intaba. shakhsiyadda kale aynu soo qaadanay saddexaad waxa weeye waa shakhsiyadda kibirka badan. qofka ku sifoobay inuu isla han weynaado, dadka kalena uu had iyo goor mooday inuu ka sarreeyo. macquul ma tahay in la jeclaado shakhsiyad kibir badan? waa macquul, laakiin waxay ku xiran tahay habka loola dhaqmayo qofka kibirka badan leh. shakhsiyaddan oo kale rag iyo dumarba waa ay ku sifoobi karaan. waxyaabaha lagu gartana waxaa ka mid ah waa anaaniyiin, had iyo goor keligoodun isla muuqda. marka haddii uu qof jeclaado qof kibir badan, wiil iyo gabadhku doono ha ahaadee, waxaa la gudba marka ugu horeysa inuu barto dabeecadda kibir badnida. deetana waa inuu haddana aqoon u yeeshaa sidii uu la dhaqmi lahaa qofkan kibirka badan leh. tusaale ahaan qofkan oo kale waxaa laga yaabaa maadaama kibir badan yahay islana weyn yahay, haddii aad doonayso inaad wax u sheegto waa inaad kasoo gashaa xagga isla weynida iyo kibirka. waa inaad la dareentaa inuu yahay qof han weyn, qof sarreeya, maaha inaad adiguna liido oo aad si adag ula dhaqanto, mararka qaarkoodna aad hoos u dhigto. qofka sidan oo kale ku sifoobaya haddii aad isku daydo inaad isbabar dhigto ama maya aanad tusin raganimadiisa ama dumarnimadeeda heerka ay gaadhsiisan tahay, waxaa laga yaabaa qofkaasi inuu dareemo in halkan lagu yeesayo uu joogo, sidaa daraaddeed uu ka falcelinaya. deetana halkaa waxaa laga yaabaa inuu khilaaf ka abuurmo. marka waxaa la gudboon qofka kale markuu la dhaqmayo amaba uu la macaamuloonayo qofka kibirka badan leh in uu had iyo goor uu isku dayo inuu dareensiiyo qofkan inuu yahay qof u qalma inuu noqdo qof kibir badan, inuu dadka ugu sarreeyo, in uu waxyaabahaasoo dhan uu u qalmo. marka qofkan nafsiyad ahaan wuxuu dareemayaa nafis, maadaama isagana baahidii loo buuxiyo qofkan kale wuxuu u sameynayaa wax kasta oo keensanaya inuu qofkan kale jacaylkiisa uu ku kabco. tusaale ahaan qofkan oo kale haddii uu sameeyo waxyaabo khalada, maaha markiiba in gabadhu ay ninka canaanato kibirka badan leh, ama maaha ninku inuu canaanto gabadha kibirka badan leh. waxaa la gudboon inuu kasoo galo una garaaco xadhkaha kibirka. waa inuu u sheegaa kuna qanciyaa inuu yahay qof waxaan ka han weyn oo aanay ahayn inuu sameeyo ficilada noocan oo kale ah. marka halka uu kasoo gelaya waxay noqon kartaa inuu yidhaahdo qof weyn baad ahayd, qof khatara baad ahayd, qof bulshadu ay qadariso baad ahayd, qof waxaad ahayd iskala han weyn, waxyaabahan oo kale ma ahayn inaad samayso. marka waxaa laga yaabaa qofkaas inuu isla yaabo kibirka badan leh waxaana uu ka tago. marka nolosha qoysku waxaad moodaa inay u dhigan tahay in xirfado tiro badan leh ay tahay qofku inuu sii qaato intaanu guursanin ka hor, deetana markuu nolosha qoyska galo uu kula dhaqmo qofka tilmaamahan yeeshay. shakhsiyadda afraad aynu soo qaadanay iyaduna waxa weeye waa shakhsiyadda ay kalsoonidu ku yar tahay. dadka qaarkood ba waxaa laga yaabaa rag iyo dumarba inay ku sifoobeen kalsooni yari. marka waxyaabaha lagu garto qofka inuu kalsoonidu ay ku yartahay waxa weeye had iyo goor waxa uu isbabar dhigaa dadka kale. had iyo goor waxa uu isku dayayaa inuu isbabar dhigo lamaanihiisa nolosha la wadaagaya. haddii uu nin yahay had iyo goor wuxuu isku dayayaa inuu isbabar dhigo gabadhiisa. ta ugu daranna waxa weeyaan haddii ay gabadhu nolosha waxyaaba badan ka guulaystay ninkuna aanu ku guulaysan, ninkaasina uu leeyahay tilmaamaha kalsooni yarida. haddii aanay gabadhu ninkan dareensiinin kalsooni badan inay u hayso, waxaa laga yaabaa inay arrintaas khilaaf abuurto. marka dumarka qaarkood baa laga yaabaa inay yidhaahdaan ninkan wuxuu ka xun yahayba guulahanan gaadhay. ninkanna maadaama kalsoonidu ku yartahay waxyaabaha sii dhibaya waa taa. marka ninkan sida keliya tee lagula dhaqmi karaa waxa weeye xalkuna uu ku gaadhaya, jacaylkooduna uu ku badbaadaya in gabadhu ay had iyo goor ay isku daydo ama dareensiiso inuu kala qayb qaato guulihiisa. tusaalehaan haddii doonayso inuu go'aamo masiiriya gaadho, waxaa la gudboon in isaga la tashato. dabeetana hadhow waxa uu dareemayaa guulaha ay gabadhu gaadhay inuu isagu kala qayb qaato. taasuna waa mid lagu daweyn karo kalsooniyarida ninka soo food saartay ama uu ku sifoobay. mararka qaarkood waxaa dhacda gabadhu in ay ninka la ficiltanto, deetana ay tiraahdo doorkan waa doorkii dumarka oo kale. tusaale ahaan qolooyinka ku dooda gender balance ama sinaanshiyaha jinsiga, waxaa dhacda guryo badan inay ku burbureen arrintaa iyada
waayo gabadhii ayaa waxa ay ka wax soo saar badatay ninkii, deetana ninkiina kalsoonidii baa ku yar, ninkii bay u faantay, ninkii waxaa laga yaabaa inuu halkaa ka dareemo in halkan lagu yeesayo ama ay gabadhan ay doonayso inay gumaysato oo kale tusaalahaan siday bulshadu aaminsantay. deetana arrintaas waxay abuurtaa khilaaf joogtaa oo had iyo goor burburisa qoyska. arrintaasoo kale marka culimada cilmi nafsiga ay eegayaan ay doonayaan inay xaliyaan had iyo goor waxaa awoodda la saaraa oo eedda ugu badan la saaraa qofka tilmaamaha wanaagsan leh. qofkan tilmaamaha wanaagsan leh oo gabadha markaynu eegayna xaaladan ayay tahay inay qofkan kale soo jiido oo ay dareensiiso in uu guusha kala qayb qaatay. waxaynu weli ku guda jirnaa xiriirka ka dhexeeya jacaylka iyo tilmaamaha shakhsiyeed ee uu qofku leeyahay. waxaynu ka soo hadalnay 4 tilmaamo shakhsiyeed oo aynu hore u soo sharaxnay. shakhsiyadda shanaad ee aynu soo qaadanayna waxa weeye waa shakhsiyadda warwarka badan. shakhsiyaddan had iyo goor waa shakhsiyad noqnoqod badan, shakhsiyad xasaasiyada, shakhsiyad ay ku adag tahay inay go'aan gaadho. rag iyo dumarba qofka tilmaantan warwarka badan ku sugan habka loola dhaqmaya waxa weeyaan in la isku dayo in laga haqabtiro baahida noqnoqoshada badan. tusaale ahaan qofka kale waxyaabaha ku adag waxaa ka mid ah go'aan qaadashada. qofkan oo kale waa in laga caawiyaa go'aan qaadashada iyo sidii uu gaari lahaa go'aanka. waayo waxaa laga yaabaa maadaama yahay qof warwar badan inuu isweydiiyeen wax walba su'aalo badan kaga yimaadaan. tilmaamaha kale uu leeyahayna waxaa ka mid ah qofkan inuu yahay qof yaro neerfasa oo mar walba warwarsan oo mar walba xaaladiisu ay yaro kacsan tahay. marka qofkan oo kale waa qofka loo yaqaan qofka warwarka badan. sida loola dhaqmayana waxa weeye sidaa aynu soo sheegnay. shakhsiyadda lixaad waxa weeye waa shakhsiyadda dadka kale ku tiirsan. shakhsiyaddani waa shakhsiyad aan warwar badnayn balse waa shakhsiyada had iyo goor isku dayda in dad kale ay ku tiirsanaato. rag iyo dumarba cidda ku sifooday shakhsiyadda dadka kale ku tiirsan waxyaabaha lagu garto waxaa ka mid ah dadka kale ayaa inta badan wax ka suga. tusaale ahaan haddii uu nin ku sifoobo shakhsiyaddan ah shakhsiyadda dadka kale ku tiirsan waxaa laga yaabaa in uu had iyo goor isku dayo in wax walba uu ku dhaqaaqayo uu gabadhiisa la soo socodsiiyo, in haddii uu go'aan gaadhayo gabadhiisa la soo tashado, in wax kasta uu qabanayo gabadhiisa ula tago. deetana waxaa laga yaabaa rag fara badan inay ku yidhaahdaan war heerdhe adigaaba nina miyaan ahayn adigu howlahaaga wadato. laakiin way khaldan yihiin. waxay ku khaldan yihiin waayo waxay isku khaldeen raganimada iyo shakhsiyadda qofku ugu dhashay. waxaa laga yaabaa ninkan shakhsiyaddan uu dhashay inay tahay shakhsiyad ah in uu dadka kale ku tiirsanaado, in uu dadka kale xogaha ka sugo, in aanu keligii go'aan gaari karin ilaa uu meelo kale soo maro. markaa shakhsiyadda uu leeyahay awgeed ayaa ah tadabraysa ninkan ee gabadhan u geynaysa. arrinkan la jirtaa waxaa muhiim ah inaynu ogaano inuu farqi weyn u dhexeeyo raganimada iyo tilmaamaha wanaagsan. inta badan mushkiladayna haystaa waxa weeyaan haddii aynu Soomaali nahay dalal badanna waynu kala simannahay dhammaan tilmaamihii wanaagsanaa oo dhan waxaynu nidhi waa tilmaamaha raganimada, aftahanimada, geesinimada, deeqsinimada, waxyaabahaas oo dhan waxaynu nidhi waa tilmaamihii raganimada. dumarkiina waxaynu usoo reebnay tilmaan kasta oo xun. waxaa la odhanayaa arkan tilmaamihii dumarku leeyahay baa laga yaabaa inay bulshooyinka qaar isku cayaan oo ay u jeedaan calashaan tilmaamo liita ayuu qofkan leeyahay. balse sida saxda ah tilmaamaha wanaagsan waa loo sameeyay. gabadhu tilmaamo wanaagsan way yeelan kartaa, ninkuna tilmaamo wanaagsan waa yeelan karaa. gabadh baa aftahan noqon karta, deeqsiyad way noqon kartaa, waxay noqon kartaa mutacallimad bay noqon kartaa, waxay noqon kartaa gabadh isku kalsoon. marka waxaa laga yaabaa rag fara badan markay arkaan gabadh isku kalsoon in ay yidhaahdaan maxay gabadhan kibirka badan leh. waayo sida ay bulshadeennu aaminsan tahay tilmaamaha liitoo dhan maadaama xaggii dumarka lagu leexiyey raganimadiina la yidhi tilmaan kasta wanaagsan waa inay raggu ku sifoobaan. in gabadhii tilmaamo wanaagsan la timaado baa la yidhahdaa maxay gabadhan kibirka badan leh, lama maamuli karo, waa sidan iyo wax lamid a. markaa guud ahaan farqi baa u dhexeeya raganimada iyo shakhsiyadda uu qofku ku sugan yahay. tilmaantan aynu soo sheegnay ee ah shakhsiyadda dadka kale ku tiirsanna waa abuur uu ilaahay u abuuray oo uu sidaa ku sameeyey. si lamida siduu ilaahay noogu abuuray midabada tirada badan leh ee cadaanka, maariinka iyo madowgaba leh ayaa ilaahay noogu abuuray shakhsiyado kala duwan oo kala gaar ah. shakhsiyadda lixaad ayaynu soo qaadanayna waxa weeye iyaduna waa shakhsiyadda taban ama shakhsiyadda ka samaysan cadaawadda. qofka leh shakhsiyadda cadaawadda had iyo goor waxa uu ku sifoobay tilmaamaha ay ka mid yihiin inuu had iyo goor si xun wax u soo bandhigo, inuu si xun u hadlo, inuu wax walba ka eego dhinaca taban. marka haddii qof tilmaantan leh wiil iyo gabadhkuu doono ha ahaadee la jeclaado waxaa muhiima isla markiiba inaanu qofkan ka tegine balse uu qiimeyn ku sameeyo, in uu isbarbar dhigo wanaagyada uu leeyahay iyo dhaliilaha uu leeyahay. haddii wanaagyada uu leeyahay ay ka badan yihiin dhaliilaha uu leeyahay qofkan waa qof lala noolaan karo, tilmaantana waa lagu dul qaadan karaa. balse haddii xumaanaha uu leeyahay ay ka badan yihiin wanaagyada uu leeyahay waxaa laga yaabaa taasu inay caqabad ku noqoto nolosha qoyska. shakhsiyadda toddobaad ee aynu soo qaadanayna waxa weeye waa shakhsiyadda qallafsanaanta. qofkan tilmaamaha lagu yaqaano waxa weeye wiil iyo gabadhba waa inay hadalka si adag ugu hadlaan, inay ku hadlaan hadallo adag, inay hadallo qallafsan adeegsadaan, inay faraha taagtaagaan, in ay si adag u cabiraan waxay cabiri karaan oo dhan. marka wiil iyo gabadhba qof kale tilmaamahan ah shakhsiyadda qallafsanaanta waxaa la gudboon in qiimeyn ballaaran lagu sameeyo iyadoo loo eegayo sidan uu u dhaqmaya ma waxa weeye si uu u dhashay ama si ay bulshadiisu u dhaqanto mise waxa weeye si uu isagu iska yeelyeelayo. haddii ninku tusaale ahaan uu yahay nin si adag wax u soo bandhiga
si adag u hadla ereyo qalafsan adeegsada hadii goor faraha fiiqfiiqa gabadhuna ay ka soo jeedo bulsho ilbaxa oo aan waxyaabahan oo kale adeegsan waxa la gudbo marka gabadha inay ula dhaqanto ninkaas sida qalafsanaanta ah waayo waa abuur Ilaahay ku abuuray ama ma ay bulshada ka soo jeedo oo sida u dhaqanto labadaba jacaylku ma aha dareen kaliya balse waa mashruuc dhameystiran oo ka bilaabma caqliga kuna dhamaada qalbiga waa hawl adag oo u baahan in laga shaqeeyo mid kamid ah hawlaha u yaala lamaanaha isqaba waxa weeyaan inay bartaan shakhsiyadda qofka qof walba shakhsiyad gaar ah ayuu leeyahay Ilaahay siyaabo kala duwan ayaa weynoo abuuray shakhsiyad walba waxa leedahay tilmaamo gaar marka qof walba waa muhiim inuu barto shakhsiyadda u gaarka iyo sida ay tahay in loola macaamilo si ay taas u hirgashaan waxa muhiim ah qofka marka ugu horreysay inuu ogaado shakhsiyadiisa noocay tahay sidoo kale waxa muhiim ah inuu ogaado marka labaad inuu ogaado shakhsiyadda cidda uu nolosha la wadaagayo wiil iyo gabadh deetana marka halka ay isla marayaan qodobka saddexaad waxa weeyaan in labada qofba ay isla gartaan mid walba si loola macaamilo lahaa isku macaamil maaha ama isku si loolama dhaqmayo qofka shakhsiyadiisu ay tahay shakhsiyadda aamusnida iyo qofka ay shakhsiyadiisu tahay shakhsiyadda xasaasinimada ama shakhsiyadda boodada sidaa daraadeed waxa muhiim ah inuu qof walba ogaado habkii uu la dhaqmi lahaa qofkan kale hadii uu dhaliilo leeyahay shakhsiyadaasuna uu qorsheyaal ka yeelan lahaa habkan sanaysan inay jacaylkooda kobciyaan haddii ay lamaanuhu isla fahmaan nooca shakhsiyada ee uu mid walba leeyahay waxa fududaanaysa inuu jacaylkoodu noqdo mid kobca sidoo kale waxa meesha ka baxaya furinkii iyo jaaniskii khilaafku ku dhici lahaa ubadka waxa lagu soo barbaarinaya deegaanka kalgacal iyo naxariis taasoo sabab u noqotay inuu noqdo wax soo saarkooda mid aad u sarreeya oo horseeda horumarka dalka Ilaahayna waxa uu dhex dhigayaa lamaanaha kalgacalka iyo naxariistii Ilaahay quraankiisa ku sheegay ee uu ku yiri waja'ala baynakum mawaddatan wa rahma daawade aad iyo aad baad u mahadsantahay daawashadaada waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iido xog muhiim ah oo la xiriira arrimaha jacaylka oo ku soo biirtay akoonkaaga qaybta aqoonta haddaba si aad u daawato xalqad kale oo ka xiiso badan xalqada aad maanta daawatay ugana faa'iidaysato xog cusub oo la xiriira arrimaha jacaylka waxaad like garaysaa page-ka haddii aad page-ka ka daawatay ama waxaad subscribe garaysaa channel-kan YouTube-ka haddii aad YouTube-ka ka daawato